iskuulka Hanaqaad ayaa wuxuu u qabtay hablaha dhigta iskuulkaasi xaflad dhiirigelina gaar ahaan galaaska afraad oo noqonaya dufcadii 8aad uu soo saaro iskuulka Hanaqaad isagu ka jira gudaha magaalada Laascaanood. hablahan iyo ardaydan ka baxaya iskuulka waxay ku dhigtaan si lacag la'aan ah iyadoo aan wax lacag laga qaadin. iskuulka iyo dhismaha uu ka shaqeeyay ayaa horay waxa uga hirgelisay gudaha magaalada Laascaanood. hay'adda MBA uu soo wada duubo ardaydan ayaa waxay si weyn ugu farxeen kadib markii halkaas mas'uuliyiinta iskuulka Hanaqaad ay guddoonsiiyeen shahaadooyin ay ugu sii gudbi doonaan dugsiyada ka jira gudaha magaalada Laascaanood iyagoo halkaas ku dardaarmay inay waalidiintooda ku dadaalaan sidii ay waxbarasho ugu heli lahaayeen carruurtan ay muddada faraha badan gacanta ku soo hayeen iyagoo oo siinayay aqoon lacag la'aan. waxaana halkaas ka hadashay Xaliimo Xasan Saalax oo kamid ah howlwadeenada iskuulka Hanaqaad ee xarunta magaalada Laascaanood. hadii aan ka warramo iskuulkan iyo asaaskiisa iyo ujeedada loo asaasay iyo waxa uu asaasan yahay iyo waxa uu qabto. iskuulkan waxa loo asaasay in kor loogu qaado aqoonta haweenka mid yar iyo mid weynba iyadoo ay u qaybsantay waxbarashada ay bixiyaan formal education iyo non formal education. non formal education-ka waxa qaata gabdho imika ku dhow 130 meelaha waxa ay bartaan xirfado kala gedisan sida toliinka, alaabta, dawaarka, cunto karinta, sida akhriska iyo qorista. haddii aan u noqdo ardayda formalku waxa weeye iskuul asaasi ah oo wata manhajka caadiga ah ee ardaydu qaadato waxa ay qaataan inta maado ee lagu qaato dugsiyada asaasiga ah. waxa ay hadeer inta fadhida waxa weeye 198 ayaa dhigata oo u kala qaybsanta galaaska koowaad ilaa galaaska afraad. xalfadan aan maanta isugu nimi ujeedadeeda iyo sababta aan isugu nimi waxa ay tahay dhiirigelinta gabdhaha si ay ardaydii afraad galaaskan baxaysay sanad dugsiyeedka 11 iyo 12 ay u sii wataan waxbarashadooda oo aanay ugu habsaamin guryaha sida majority-ga ama caadadu ay tahay iyada oo gabdhaha inta badan aan waxbarashadooda la dhiirigelinin ayaa anaga oo waxbarashada ardayda sii wadnay waxaanu jecelnahay in aanan ka harin hadii Ilaahay idmo oo aan hore u sii wadno oo gaarsiino la dugsi dhexe sare balse hadeer xilligan ay tahay duruufaha ay ku eegyihiin galaasyada afraad 20 arday oo u wareegaysa dugsiga dhexe dhameystaan ardaydii dugsiyada hoose galaaska afraad. sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka tirsan macallimiinta iyo ardayda oo iyagu soo bandhigay qiimaha ay leedahay waxbarashada. encouragement ama dhahay dhiirigelina hadaba in yaro waxay ka wanaag inaad waxbarashada bartikas wadataan waayo maanta xafladan waxa laga yaabaa dad fara badan oo aan idinka ahay markay arkaan inay isku cilkaan biyaan ama dad badan oo isku waqti ahaydeen inay suuqa joogaan kadib markay xafladan arkaan aad ku qalin jabiseen inay walwal ku dhaco isla markaana ay dhahaan ardadan la berigii arday isku arday ahayd maanta nisbana uga qalin jabiyo laakiin idinku waa inaad ayni hata wax farxad badan ya encouragement-ga waxaan rajaynayaa inaad runtii noqotaan dad bulshada ku soo kordhiya progress and prosperity. اسمي يوسف أحمد. أنا تلميذ من تلاميذ مدرسة هنقاad في Laascaanood. هي مدرسة حصص كثيرة مهمة جدا مادة اللغة العربية وهي حصة مهمة جدا في مجتمع الإسلامي والتلاميذ الذين يتعلمون في مدرسة هنقاad يحبون هذه الحصة. وأختم قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولada macallimiinta iyo maamulayaasha iskuulkana xiriir wanaagsan baan uga dhaxeeyana waxaan nahay waalidiintii iskuul ardayda aad baan u hambalyeynaa waan ku faraxsanahay in fact sida ay wax u socdaan qayb baan u rajaynaynaa insha Allah kuwa qalin jabiyayna waxaan rajaynaynaa inay sii wataan waxbarashadoodii kuwa soo galayana waxaan u rajaynaynaa inay garanaysaa waxbarashadooda bilowdaan Allah mahad ay salaamay Somali Channel TV xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.